islaamnimadu ay tilmaantay waxa ka mid ah nicmada amniga iftiinka sunnada nabiga sallallahu wasallam alayhi yaabaha laga dheehanayana waxa ka mid ah qiimaha uu leeyahay amniga waayo nabigu wuxuu tilmaamay qofka noloshiisa saddex arrimood inuu ku dhaxelo inay uga dhigan tahay adduunka iyo tafaasiishiisa oo dhan in loo soo kulmiyay saddexda arrimood waxa ugu horeeya inuu qofku ammaan helo oo jir ahaan u badqabo xaaladda inuu ku noolahay waddankeena oo la dhihi karo xaalad dagaal oo aanan dabiici ahayn asi intaan dhowranay oo faraha laga qaaday u ekaatay inay tahay wax normal ah ma aha wuxuu islaamku ogol yahay sidaan u noolnahay sidii islaamku uu nala rabay ma aha sidaan u noolnahay si ilaahay uu nooga raali noqonaya ma aha sida aynu nahay oo u noolnahay ma aha sida bini aadanka kale ee muslim iyo gaal leh ay ku raali noqdaan inay u noolaadaan asaasiyaad baa jira noloshu ay leedahay haddii laga waayo ay qiimo beelayso ama ay dhadhan beelayso nabigu wuxuu leeyahay sallallahu wasallam alayhi man asbaha minkum aminan fi sarbihi mu'afan fi jasadihi indahu qut yawmi فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها qofkii waa bariista isagoo u badqaba jir aha isagoo amni ahaan u badqaba oo maxaa la yiraahdaayay baradiisa ku nabad qaba jir ahaana caafimaad qaba maalinka intii uu cuni lahaana haysta oo aan ka walwalsanayn qofkaas wuxuu la mid yahay adduunka iyo dhaldhalaalkiisa iyo tafaasiishiisa iyo yaryarkiisa iyo waaweynkiisaba in la isugu wada keenay ama uu aruursaday oo kulansaday wuxuu ka dhigay marka nabiga sallallahu wasallam alayhi adduunka kulansashadiisa amnigu inuu ka yahay saddex meelood oo meel inuu yahay wuxuuna ku tilmaamay inay yihiin saddexdaas inta kale rizqi aad hesho iyo caafimaad qab markii la waayo amniga nolosha adduunka oo saddex loo qaybiyay qayb ba ka maqan ilaahay markaas uu ummadna sheegtay quraysh oo ku yiri falyabudu rabb hada albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf quraysh aabudan baytka kan allahi iska laha allaha soo ka qoodiyay gaajo oo dharjiyay cabsina ka aamin yeelay oo ay nabad qabaanayso ka walaacsanayn يعني وحنا نهين مصائب عام كربانية إني ودي باتون هيا الكار واحد لقد يجانيا نعمة أمنية يحسلوني ذو سلويه نعم ووين وإلهي سبحانه وتعالى وكب الله ذي الدوم ديسا نبي عرب كيسان الوجوسية صلوات الله وسلامه عليه وعندنا كجرنا يسا حديث كمركز دبوا في رسوه من أصبح منكم آمنا في سربه أمن جبل لوجوه مريه وايو haddaad caafimaad qabto oo cunto haysato oo amni haysanin caafimaadkuna macna kula yeelan mahayo cunaduna dhadhan yeelan mayso amnigu marka waa kow waxay diinta islaamka ku dartay qofka inuu badqab helo ujeedooyinka waaweyn ee loo yaqaan kulliyatul khams ama daruriyatul khams ayaa laga dhigay oo diinta islaamka ujeedooyinkeedu maxay yihiinba waa in qofka ammaankiisa la sugaa dhinac walba markuu yahay maxay ahayd xifdhu nafsi والعقل والعرض والمال والدين إن قفك الله إلاليه أو بتقبل وهلو الدين كيسا نفس الديسا مال كيسا عرض كيسا وهلو مجرد انتو بوانا بتقبل إنه هلاوي هدي مركة أمن الدر متك بدأ يكتب هذا وحي سامين كي يلا ليسا انتي كلا سمرك الله حقيقي أرنتا إيضا أيا وحوال با وأرنتا داوع كوكينا هي حرام بالغا كو محاكا تصورات كفاسدك قف انه سقل دنو فكره قف انه ميزان iyo halbeeg aan saxayn intuu qaato uu wax saaro markaana uu ka dhirin dhiriyo natiijo isagana dhibayso ummadan ay ku dhibtoonayaan imaam al-Ghazali waxa uu leeyahay diintu waxay u timid waa maslaxo maslaxaduna waxay tahay al-muhafadatu ala maqsudi shar' in la ilaaliyo sharciga danta uu leeyahay
ومقصود الشرع من الخلق 5 دنت وكليه شرعي مخلوقنا وحويه شن وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم وأنا إنه إلى اليوم يعني الدين تودا يا النفط تودا يا عقل تودا يا التفكير تودا يا مال تودا فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول ال5 فهو مصلحة انت إلى أن تودا وحي كينها يؤرنا مصلحة وكل ما يوفت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة وحول بقى أصوشا شنطة وحكتك سينا يا أما هلينا هينا ومفسده إلا الدفاع العلينا مصلحة كنت تفتح marka inta cidi wax u dhimaysa wixii wax u dhimaya waxa ugu horeeyay ka baahan yahay waa maxay oo shakhsi noo saaran in la difaaco in la iska celiyo oo yax la iska yiraahdo ma la yiraahdo si kale hadii loo yiraahdo in la ilaaliyo maqsuudka ama danta uu leeyahay sharcigu oo laga ilaaliyo in lagu ilaaliyo in la difaaco mafaasida ku imaanaysa makhluuqa waa maslaxo qaradka ugu weyn ee siyaasadda iyo dawladnimada laga leeyahay oo dadka muslimiinta inay kala dambeyn yeeshaan waa inta in la xaqiijiyo ammaanku marka walaalayaal waxyaabaha ugu qaalisan ee qofka bini aadanka uu helo dalkeena markuu amni waayay dadkeeni agoon bay noqdeen marti bay noqdeen dad duuflaal oo dibadyaal ay noqdeen oo dayacan dal walba iyagoo kala daadsan oo ceebtoodu banaanka taalo oo cawradoodu muuqato ayaad ku arkaysaa limaada gudihii baa dab ka shiday waxa dalkan ay u soo doonteen bay ka waayeen gudihii waxa dalkan ay ka helayaan baan halkan looga xaqiijinaynin waxa dalkan ay waxa weeye ka ah inaan laga wada hadlin oo qof uu ku nasanayo baa waxa weeye wadankii marka la joogo qof uu gaardaymoonaya yaa ku daba socda yaa ku ilaashanaya yaa ku raad jooga inna dambi ka bagin laakiin dalkii hore muxuu u dhibaataysan yahay dalkii hore muxuu dhibana u yahay in yaroo mufsidiin ah oo la qaban karo oo haddii inta masaajidka joogtay in kale ay ku dhaqaaqaan ay wasuuro gali karaysaba dalkaba waxa weeye ammaankiisa in lagu sugo ayaama kooban dhibaatooyinka aan qabno waxaa ka mid ah iyadana walaalayaal oo loo baahan yahay in baraarug loo yeesho dadkeennu inay wada yihiin dad dulmanayaal ah oo dulmanayaal u ah xaaladooda dulmanayaal u ah dad dhaalimiin ah dulmanayaal u ah iyaga dhexdooda oo iyaga laftooda dhibaato isku haya dulmanaanta ay ku nool yihiin qayb waxaa ka ah kuwii wax dulminahayee la garay kuwo kale oo kuwii dulmanaa ah baa waxay gacan siinayaan kuwii dhaalimiinta ahaa markaasaa dhaalimkii baa sii xoogaysanaya waayo ku makhduuc ah oo maxaa la yidhahdaa daciif ah oo maxaa la yidhahdaa xaqiir ah baa wuxuu gacan ku siinayaa inuu kaas dulmiga leh uu sii xoogaysto oo dulmi kale uu sii geysto oo xitaa cidda uu dulmiga ku geysanayo kan gacanta siinayo uu ka mid yahay lacag bay dadka weydiinayaan qofku waa bixinaya waa u caga juglaynayaan xadda istaagaysa waa qaxaya waxa cagsigooda inuu sameeyo ayayna noloshiisa ku jirtaa waxay sheeganayaan oo ay ku andacoonayaan inay jihaadayaan jihaadka sidaynu naqaanana dawaabid buu leeyahay axkaam buu leeyahay shuruud buu leeyahay arkaan buu leeyahay shuruudiisa waxaa ka mid ah qofku inuu ku jihaado ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ahaanshihiisa isagoo doonaya jidka ilaahayna u furaya waxa weeyaan ama ka leexinaya xaqdarrada ka leexinaya muxuu ku jihaadahayaa naftiisa iyo maalkiisa waayo qur-aanka maxaa ku taalla jaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiili illah ayaa ku taalla qur-aanka ayagu laakiin maxay sameeyaan jaahiduu biamwaali wa anfusi ghayrikum bay leeyihiin waxaad ku jihaadaan naftiinna ma ahine nafta cid kale iyo maalka cid kale baad waxaad ugu jihaadaysaan ilaahay jidkiisa iyagu ay samaysteen oo aan ahayn ilaahay jidkiisa saxda ah oo maxay leeyihiin inaan jihaadaan rabaa lacagta laakiin adiga bixinayo haddaad bixin weydo soomaha aadan ku dilaya war waxaas diintee weeye xaggee laga soo dheegtay kitaabkee bay ku taallaa garanaysaa arrimahaasu marka waana daashadeen ilaa inta la qabatimay oo qofka ka hadle ee ka dhiidhiye ay yidhahdo war waxaas sax ma aha isaga il naxariisa lagu fiiriyo la miskiin hadda ay dilahayaan oo garatay Soomaa marka hadii dil isugu bootay macnaheedu muxuu yahay kulligeen xaraam ka wada shaqeynayna kulligeen dhaalimiin ma noqonaynaa qaatiliin baa noqonaynaa
hadday noqoto meesha ay joogto waaba lagu dilayaa diinta bacaa waa looga baxaya cirdigii baa la sallimayaa magaaladii baa waxa weeye in sheeg la wada dhiibayaa waxaa suma yihiin marka wixii diinta ayna faraysa dagaal baa ka socda waddanka meelo fara badan oo ka mid ah waxaad moodaa waddanku inaanu isu damqasho iyo isu turid aanay ka dhaxaynin magaalada qarkeeda lagu dagaalamaya halkan baa lagu ganacsanaya halkan baa shaah lagu cabaya waxa loogu dagaalamaya wax kale ma aha waa qofka meeshan fadhiya ee la mubaalaadka u nool sidii amaankiisa loo sugi lahaa dowladdii baa iyadoo iska tabardaran intii karankeeda ha dadaalaysa wuxuun bay dhaqaajinaysaa mararka qaarkood waa la dagaalamaysaa waa laga garabaxayaa kuwii la xoreynayay qayb ka mid ah baa u jaasuusahaya ilaahay kuma samadiiday kuwii daalimiinta ahaa kuwii la rabay in laga ilaaliyo inay naftooda gacan soo gaadho baa waxa weeye dhaliil ula fariisanaya dagaalkii socday ee iyaga dantooda looga shaqaynayay amnigooda lagu ilaalinayay inta maxaa weeliya maalgelinta nimanka kan dibadna waxba lagama siiyo dalal shisheeyana waxba uma soo diraan cidda dagaalamaysana inta badan markii la joogo gobollada intooda badan waa Soomaali cidda lacagta ay ka qaadaanna waa Soomaali markaas intay kabshaxeen oo dhargeen oo lacagta meel ay kala geeyaan ay waayeen bay Boko Haram iyo kuwa kale oo mujrimiin ah ay u sii dirayaan yani dagaalo iyo dulmi kale oo meelo kale ka sii socdo baa laga maalgelinaya lacagta laga qaadayo meesha arrimaha noocaas ah diinta islaamka boos haday ku leeyihiin boos aad u xun weey booska ku leeyihiin waa dayuusnimo nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam alayhi la yadkhulu aljannata dayuus qofka dayuuska jannada ma galo waa qofka xumaatada isku daawada ee dareen laawaha ee damiir laawaha waxa xalay soo gaartay warqada waxa lagu qaybinayaa magaalada Muqdisho waxa la isugu dirahayaa waxa la yiraahdaa isheeg waxa la yiraahdo WhatsApp-ka markii hore telefoon aan la aqoonin iyo meelo yar oo laga gabaday iyo qof codkiisa gaabinaya iyo waxa telefoon soo diray hadda WhatsApp baa dhag laga siinayo waxa ku qoran بلغيس وحاس والدين لشيغانهايا بسم الله الرحمن الرحيم حركة الشباب المجاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقول السلام على من اتبع الهدى بالله جيران هذا حقا وسط الدور هيا السلام عليكم بالله وحركة مجاهدين تاع الشباب ولا يدا إسلامية قبل كبنادر بنادر ده وحال لقاربا بريتو لسدح ساعة بيرتع علي مهدي أما أقنجي إن شاء الله ولا يدا أمر كذا قاضي أخي في رجارة عدي قادم وإذا أمر كمجاهدين تا وحن كقاضي دونا طلابه وافصا شريعة الإسلام إن شاء الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين هذا كمان عايزونه حرام بس اللي بيقول بلعبها هي آيات قرآن اللي بيقول ما هي وكنا عيا با إلهي بس كيس الله سوق بسنة يا وكباد يا با إلهي مجلس الله سوق بسنة يا erayada ku qoran meeshii waa Soomaali laakiin waa maxay waxay xambaarsan yihiin iigbi xambaarsan yihiin haddaad amarkeenu u hogaansami weydo waa dil beerta calimeed xagee ku taala tolo hadda Itoobiya ku taala ma geli karno soo war yaqaan ma laakiin Soomaaliya hadday meel kaga taalo inta fariintan ay soo gaadho waajibka fuulahaya waxa uu yahay inay ku jihaadaan waxa soo qabqabtaan dawladda xil baa ka saaran gobolka Banaadir waa caasimadii waddanka muqdisho waa meeshii Soomaali buraayadeeda ahayd laba dawladood kama talin karaan dadkaadu cabsi kuma noolaan karaan muddaynu ku soo noolaayeen meesha la yiraahdo bari waxa ka socda dagaal la isku aadaynayo oo la leeyahay waa laga gaabiyay iyo dawladda federaalka aaway iyo dadka reer muqdisho aaway iyo dadka goboladan aaway laakiin markaad waxaan oo kala aragto dad xaaladan ku nool iyaga xoreyn u baahan cidna ma xoreyn karaan cidna uma gurban karaan ilaa mustawa inta la eg baan wadaynaa marka ilaa goorma baan isuma ciirsata ahaanayna ilaa goorma ayaa waxaas injirta ah ay naga shaqaysanayaan oo sidii idii oo kale aan codkeena intaan qarina aan leenahay juu hadhiin hadii kale waa nooga sii darayaan يا جماعة الخير حالة ku jirna xaalad aad u liidata weeye waa xaalad u baahan intaan dib isula hadalna inaan dhahno war kuwii faraha badnaayeen naga dhintay intooda badan iyo dhuuban hayaan lagu arkin leh buu ama qarax qabsaday ama madaxa la jabiyay ama si kale loo dilay inta hadda joogtan inta uma lagu wadaa waa la dadaalay dal badan baa laga xoreeyay waa la shaqeeyay laakiin wada shaqeyn ma dhicin dagaalna waxa la rabaa dagaalka kulli in loo galo dawladdu inay gasho
ciidamadu inay galaan xukuumaddu inay gasho dowladdu waa wada nahay xukuumaddu inay gasho wallahu almusta'an maxaa la yiraahdaa ii sheeg maaragtay garsoorku uu dagaalka galo wallahu almusta'an maaragtay waxa weeye ii sheeg baarlamaanku uu dagaalka galo yaa ka dagaalamay waddankan laba ruux baa la arkaya ama saddex ruux baa la arkaya aaway saraakiish intoodii kale aaway wasiiradii aaway baarlamaankii waddankan mushaarkiisa qaadanaya canshuurtiisa aaway garanaysaa aaway ganacsatadan la baadahayo may dhahaan sanadkan kaliya aan gacan ku siino dowladda si waxa weeye looga takhaluso dalkeenna muxuu tusaale xun u yahay laba sababood daraadood ammaankiisa oo xun waxaad gashaa google-ka waxaad raadisaa oo tiraahdaa weydiisaa Soomaaliya ma u safri karaa adoo Soomaaliya gudaheeda joogo jawaabaha kugu soo noqonaya ma tagi kartid bahalla jooga khawaarij baa joogta argagixisaa joogta madaxa lagu qaadaya la iskuma hadlayn karo burcad badeed baa joogta hadda ku qoran doorni qadama masawirka saxda ee noo muuqda marka adduunka ay dadku ay arkaan waa annagoo isqarxin rabna annagoo indhaheenu ay waxa weeye meel dareen ka soo jeedaan annagoo macaluushan annagoo balaayo la socono meeshaan tagno oo filna aan la tagayno waxaas noo yaala waxaan noo sameeyay kuwa iyaga suurada dihniga ee nalaga qaadanaya taa iyada waxaas marka in la isku daawado oo la dhowrto sanawaad wa sanawaad wax isbedelaya aan la arag oo ilaahay kuma samadiiday ee juhdi nooga baahan usbuuc ama bil aynu dhowrano tan iyo weligeed iyo allaheed waa wareer weyn waxa ka dhacay kal hore meesha la yiraahdo dalka adariska Ethiopia shabaabkii waxay weerareen meel bakool ku beegan markay weerareen ciidamo waxay laayeen new police gaadma ku laayeen new police baa soo guuray waa ka soo daba baxeen waa weerareen qaar baa iyagana laga dilay iyaguna qaar bay dileen oo dhaawaceen dhaawacoodii bay la soo carareen iyo takhtarkii waxay la soo aadeen meel kale oo nabad ah waa ka daba yimaadeen takhtarkiina waa dileen dhaawacina waa israaciyeen waa sii wateen 3 maalmood bay kaga saareen gobolka bakool oo idil waa 3 maalmood hadda la soco annagu haddaan waan dagaalamayna maca dagaalkii macnaha ka qaadayna sanawaad iska soconaya war meeqa dal baa idinku soo duushay markii la tiriyo wuxuu maba dhanaba 5,000 hadday xitaa dhaafaan 5,000 6,000 kama badna waana laga nasan lahayd waddankii waa laga joogi lahayd mar walba waxa sii baxay fawj cusub oo dibadda u sii qaxaya ayna saaran walaalayaal waxayna saaran mas'uuliyaadka ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu dusheena saaray ugu horeyso nafta ilaalinteeda si aynu uga dhabayno maqaasidii shariicada inay annaga nagu ilaashan tahay inaan teen ugu darayno dowladda gacan la siiyo meeshii dagaal nimanka ku wajahan uu ka jiro dagaalka ugu xaqsan oo la gala weeye inta la isugu tago hal mar hooshka lagu qaado laga soo jeedsado laba qadiyadood buu waddankan u nasan laayay qadiyada koowaad waa amni xumadaas looga sheegtay oo annagana dhibaatada nagu hayso labo xasilooni darrada siyaasadeed nimanka siyaasiyiintu gafuurka isku wada buurahaya wadmoodo dumar la isla qabo labadaas weeye kaliya haddii labada laga takhaluso dib u dhis baa la gelayaa waa loo soo shaqo doonanayaa dadba intay yimaadaan bay khayraadkiisa inay la soo baxaan nagala shaqaysanayaan ummadaasaan dhinac ka raacayna diinteenna cid naga saaraysana ma lahano haddii iyadoo aan tabar daranna baan muslimiin ahayn kuna raalli ahayn ku raalli ahaan doonaa maxaa loo baahan yahay labada caqabadood si lagu xallin lahaa in xoogga la saaro